هاي قيارتا سو dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa Emma waa gabar dhigato dugsi sare Emma saaxiibadeedu waxay u sheegaysaa inay isku wada ay aastaan dalxiis laakiin Emma ma rabto dalxiiskaasi Emma saaxiibadeeda waxay neceb tahay xariif la dhigto iskuul maalintii ku xigtay Emma waxa uu maanay asxaabteeda wuxuu u sheegayaa in la gaaray waqtigii bixi lahaayeen ay aasa lahaayeen dalxiiska laakiin Emma oo ka cagiidayso wax xog soo wadaya asxaabteeda Emma iyo asxaabteeda waxay soo aasanayaan markabkii lagu baxay markabkan waxa ku wada sugnaa dhalinyaro aad u fara badan waxaana ka jirtay ciyaaro iyo madadaalo Emma waxay si kiis ku arkaysaa wiil galaas ah wiilkana waxa neceb saaxiibadeeda Emma wiilkii ay sheegsanayaan waxaana halkaas soo gaarayo qolo booliis ah kuwaas oo ah booliiska badda waxayna ilaaliyaan badqabka badda booliiskii markuu ku soo dhawaado wuxuu rabay inuu ogaado xaaladda iyo wax ka socdo markabka Emma xariif cabsan ay wuxuu ka tuurayo markabka waxayna ku dhacaysaa biyaha waxa iska tuurayo wiilkii isbaranayeen Emma dabaal ma aqaanin laakiin wiilka magaciisa loo diim ay soo badbaadinayo waxaana loo tuurayaa doon ay ku soo badbaadaan Emma iyo diim waxay saarnaayeen doontii waxaana dhaqaaqay markabka dalxiiska ahaa sidoo kale doonta ay wateen booliiska way dhaqaaqaysaa iyadana waxaana midka kale ku haleynayay inuu soo qaadayo markabkii dalxiiska wuxuu ku haleynayay doonta inay soo qaadayso oo askarta wadatay labadan qafood doonta askarta wadatay waxay ku haleynaysay labadan kale ayakana waxay isdhahayeen waxaanay soo noqonayso doonta askarta mana qaylinin waxna ma dhihin labadoodu waxay u maleynayaan wili in uu soo noqonayso doonta askarta waxaana imaanayo roob aad u fara badan waxayna ku hugsanayaan shiraac meesha yaale soo waxdii alasay way ka soo kacayaan waxayna arkayaan qof idolo joogin doontoodana badweynta dhex sabeynayso labadoodu way yaaban yihiin waxayna isdhahayeen waxaanay soo noqonayo markabkii asaarnaydeen ama booliiskii ayaanay soo noqonayo laakiin wax uu soo noqdo ma laho diim wuxuu la soo baxayaa telefonkiisana markaas wuxuu ahay mid bilaa anteena ah sidoo kale ama telefonkeeda wuu ka damay diim wuu qoslayaa wuxuuna la yaaban yahay sidii wax u dhaceen iyo isku haleynayeen askarta Emma wuxuu u sheegi doontaa telefonkeeda inuu dib la'aan ka yahay wuxuuna ku dhigi doontaa telefonkeyga waa dib la'aan asigana wuxuu leeyahay telefonkeyga waa bila anteeno wuxuu ku fikiri doonaan inay meesha u dhow ay aastaan waxaan u dhaweyd markaasi jasiiradaasi ay aasanayaan waxayna soo gaarayaan jasiiradda labadooda jasiiradda markay soo gaaraan waxay ka heli doonaan bistoolada loo yaqaano falalganta bistooladaasi oo lagu wacdo diyaaradaha iyo helikobtarada markay jasiiraddan joogeen saacado waxay barteen jasiiraddan waxayna u noqotay inay joogaan xaafadooda camal waxaan arkaynaa ama hooyadeeda iyo aabaheeda oo aad u walwalsan waxayna la soo xiriirayaan booliiska waxayna ku leeyihiin waxaana ka maqan caruurteena ama iyo diim waxay fahmeen magaaladan waxayna ku dhex wareegayeen magaaladan aadka u yar oo ah jasiiradda ama hooyadeeda iyo aabaheeda waxay u imaanayaan booliiska kuwaasoo ahaa kuwa habeenkii ka soo cararayay ciidankan badda waxay u sheegi doonaan ama waaridkeeda inay dib u raadi doonaan waxayna ku leeyihiin nasiiyo waqti aan ku raadino ama hooyadeeda iyo aabaheeda sidoo kale diim hooyadiisa iyo aabihiisa ayaa wada hadlayo waxayna ka wada hadlayaan xaaladda labadoodan u timiday waxaan arkaynaa ama iyo diim waxaana la gaaray xili galab ah waxaana sii dhacayso qoraxda waana markii ugu horeysay ee jasiiraddan ku hooyanayaan xili habeen ah ama iyo diim waxay shidanayaan dab ama waxaa haysay dhaxan aad u fara badan diim waxaa qabanaysa hurdo wuuna iska seexanaya ama waxay ka cabsoonaysay diim waxayna isdhahaysay wiilkan hawri dhawaan jasiiraddan cidlada ah waxaan arkaynaa waaridkii dhalay oo weli ku mashquulsan raadinta ama iyo diim waxa u dhalanayso maalin kale oo cusub diim wuxuu dhisanayaa guri oo ku hoydo laakiin ama waxay aaminsan tahay in waaridkood uu imaanayo waxayna ku leedahay diim waxaanu imaanayo waaridkeena wayna na soo raadinaya xiligan diim fikirkaas uu ku raacaya wuxuuna leeyahay wayna soo raadinaya laakiin ma yaqaanaan meel aan jirno waxay raadsanayaan cunto ay cunaan waxayna ka bilaabayaan qumbaha waxay arkayaan moos meel ka baxaayo waxayna soo goosanayaan mooskaas ama ilaa hadda waxay raadinaysaa sidii ugu baxsan laheeday jasiiraddan waxayna sameynaysaa SOS oo ah kood caalami ah oo lagu aqoonsado dadka dhumay sidoo kale waxay heeday qof ku kalsoon waaridkeeda waxayna aaminsan tahay inuu imaanayaan waaridkeeda oo badbaadinayaan labadooda jasiirad waxa ku qabanayso caajis waxayna jiifanayaan maalin cad waxaana bilaabayo diim oo jiifo ayaa waxaas ag jiifanayso ama waxayna ka cabsoonaysaa diim ayaa wuxuu u soo jeesanayo ama wuxuuna qabanaya ama diim wuxuu ku leeyahay waxaan ku nool jasiiradan labadeena ha iga cabsoonin aniga waxan kuma sameynayo waa hagaag dhanka kale waxaa raadinayay warbaahinta iyo booliiska warbaahinada dhan ayaa waxay dhahayeen waxaa lumay laba qafood oo saarnay markab dalxiis ah dhanka kale waalidiinta dhaleen diim iyo Emma kama qusanin raadintooda waxayna soo qaataan maalin kasta helikobtar waxayna ka raadiyaan jasiiradaha ku yaalo wadankaas waxaan arkaynaa ama oo niijabsan waxayna ku leedahay diim waxaa joognaa meeshaan u dhawaad bil mana arkin cid noo imaato weli sidoo kale waxaa niijabay waalidiinta labadan qafood waxayna isleeyihiin saacadan ma noolo waxayna maqan yihiin hal bil waa hagaag dhanka kale waxaan arkaynaa ama iyo diim ama waxay ogaatay diim inuuna ahayn dad cunaay waxayna u soo dhawaanaysaa diim habeenkii way sheekaysanayaan laakiin ama waxay heeday qof niijabsan waxayna u maleynaysay jasiiraddan inay ku dhimanayso subaxdii markii laga soo kaco ama waxay weynaysaa diim iyadoo raadinayso diim ay waxay aasinaysaa duurduurka jasiiraddan waxay u imaanaysaa diim oo joogo webi meesha ku yaalay diim iyo ama
waxa halkaas ku dhaxmaraya sheeko waxayna isla markii bilaabayaan inay ku dabaashtaan webigan markay soo dabaashtaan waxay ku sheekaysanayaan webiga banaankiisa wuxuuna diim u sheegi doonaa ama wax fara badan diim ama wuxuu ku dhahayaa waalidkayga aniga ma jeclo waxaana laga yaabaa inaan isoo raadinin kulay adigu way ku jecel yihiin wayna ku soo raadinayaan wuxuuna niyadda u dhisayaa Emma waa hagaag dhanka kale waxaan arkaynaa waalidiintii oo warqado u qaybinayo dadkii deganay wadanka waxayna ku leeyihiin hadaad aragtiin noo soo sheega ama iyo diim way isku soo dhawaadeen waxayna noqdeen laba qofood oo saaxiibo ah ama oo meesha ku caajisan diim oo asigana soo goonayo waxyo oo siiyo ama ayaa waxay arkayaan diyaarad marayso korkooda diyaaradii ayuu istusimaagayaa diim laakiin ma arkaynin sidoo kale waxay isku dayayaan inay soo raadiyaan falaargantii bistoolada eeday laakiin falaargantii waqtigaas ma haysan markaas ka bacdi way daalayaan wayna iska fadhiisanayaan waxay maqlayaan codkaanitii oo ahaa cod xayawaan diim ayaa wuxuu isku dayayaa codkan inuu soo fiiriyo wuxuu ku naqanayaa shabeel nuucaasoo ah nuuca madow wuxuu kasoo cararayaa shabeelkii diim wuxuu la dagaalayay shabeelkii waxaana caawisay Emma waxayna labadooda halkaas dileen shabeelkii ama iyo diim waxaa ka qustay waalidkooda waxayna noqdeen kuwo aad u jabsan ama iyo diimna waxay noqdeen laba qofood oo isku dhawaaday waxayna samaysteen xiriir waxayna jasiiradaas ku wada qaadan doonaan waqti waa hagaag waxay maqlayaan hal mar helicopter codkeeda waxayna arkayaan bistooladii falaalgantaheeday oo wato daanyeer waxaana ka xaday daanyeer waxay u kala cararayaan helicopterkana waxay ahayd helicopter dalxiisayaal waxaa arkaya baaloodkii waday helicopterka wuxuuna soo kaxeynayaa labadooda wuxuuna keenayaa magaalada waxaa lagu soo dhaweynayaa airportka waxaana halkaas joogay warbaahinta iyo dadweynaha iyo waalidkii dhalay ama iyo diim wuxuu kulmayaa mar kale magaalada wuxuuna u imaanayaa gurigeeda asigoo joogo daaqada wuxuuna ku leeyahay miis guursanaa laakiin waxaa ka cagajiidayso ama waxay soo aasanaysaa iskuulkeeda waxayna dib ula kulmaysaa asxaabteeda ama waxay soo xiranaysaa maalintii ku xigtay dharka arooska ay taaga waxayna go'aansanaysaa inay guursato diim sidoo kale diim ayaa wuxuu soo xiranaya suudkiisa wuxuuna u imaanayaa iyadoo roob da'ayo ama waxay dhihi doontaa waa ku ogolahay waan isguursanaynaa filimkeena maanta wuxuu eegyahay halkaas haddaa jecesha inaan soo gudbino filimada noocan camal ah muuqaalkan like saar janaalka hataa ku cusubtaana subscribe saar aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu